komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee doorashada golaha deegaanka ee magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag halka natiijada golaha baarlamaanka la dambeysiyay waxaana xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Ceerigaabo ku tartamayay 13 kursi xisbiga u cidu helay 2 kursi xisbiga wadanina 6 kursi halka xisbiga kulmiyana helay 5 kursi waxaana natiijada halkaas ka yeedhiyay gudoomiyaha degmada komishanka doorashooyinka Ceerigaabo Cumar Cabdiqani Jaamac degmada Ceerigaabo waxay ka kooban tahay 183 goobood waxa codkoodii la tiriyay oo la dhameystiray 182 goobood hal goob oo ka maqan ay kaga maqan tahay markay isla eegeen xisbiyada komishanka heer qaran heer gobol iyo heer degmo in degmada la laalo goobta la laalo codkeeda goobtaasi waa laasa surad 1 sida uu sheegay qodobka 160aad iyo qodobka 170aad waxaynu halka ka dhawaaqi doonaa natiijadii doorashada golaha deegaanka ee degmada Ceerigaabo waxaynu horeysiin doonaa sida xisbiyadu u kala heleen codka iyo codka guud codka guud ee degmadu wuxuu noqday 44591 xisbiga UCID wuxuu helay cod dhan 8,034 xisbiga kulmiye wuxuu helay 17,298 cod xisbiga wadani wuxuu helay 18,259 cod xisbiga UCID wuxuu ka helay kuraasta golaha deegaanka degmada Ceerigaabo 2 kursi xisbiga kulmiye wuxuu ka helay golaha deegaanka degmada Ceerigaabo 5 kursi xisbiga wadanina wuxuu ka helay 5 kursi halkaas waa 12 waxa soo hadhay hal kursi oo fraction sida xeerku sheegayo fractionka kursiga soo hadhay waxa lagu qaadanayaa sida fractionka loogu kala horeeyo waxaan sheegi doonaa marka fractionka sida xisbiyadu ugu kala horeeyaan xisbiga UCID wuxuu fractionkii ka helay codadka 18% xisbiga kulmiye wuxuu ka helay fractionka 9% xisbiga wadanina wuxuu ka helay 40% fractionka kursiga soo hadhay waxa qaatay xisbiga wadani oo fractionkiisu ahaa 0.41 ama 40% waxaan sheegi doonaa murashaxiinta xildhibaanada ku guuleystay xisbiga UCID qofka koowaad Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed qofka labaad ee xisbiga UCID waa Cawil Saciid Ducaale Xasan xisbiga kulmiye Axmed Maxamed Xasan Axmed qofka labaad Cabdifataax Cabdilaahi Xasan Hurusi qofka saddexaad Faysal Cumar Barre Xasan qofka afraad Mahdi Shire Faarax qofka shanaad ee isla xisbiga kulmiye ah Maxamuud Cawaale Xuseen xisbiga wadani qofka koowaad Ismaaciil Xaaji Nuur Faarax Cigaal qofka labaad Yaasiin Xasan Cabdi Maxamed qofka saddexaad waa Fuaad Cabdiraxmaan Jaamac Cali qofka afraad Maxamed Cabdi Xasan Cilmi qofka shanaad waa Maxamed Ducaale Shire Maxamed qofka ugu dambeeyay xisbiga wadani ee ku soo baxay codka fractionka Xuseen Maxamed Axmed Abakar sidaas wax ku dhan 13 xildhibaan ee golaha deegaanka waxa iyaguna dhinacooda halkaas ka hadlay mas'uuliyiin sarsare oo ka socotay asxaabta qaranka ee kulmiye u cidiyo wadani komishanar Cabdiraxmaan Dixood taliyaha qaybta gobolka Sanaag oo dhamaantood bahanbaliyay xildhibaanadan soo baxay dad walaalaaba tartamayay intii guuleysatana hambaliyaan leenahay laakiin muhiimadu iyo sirtu waa qarannimada in qarankeenu guuleysto sideen u dhanahay weyn guuleysanay haddaynu nahay dadka Soomaaliland runtii maanta shucuurtayda waa mid aan la soo koobi karayn doorasho halkan inoogu dhacday muddo aynu soo wadnay waxay ku dhamaatay si silmiya oo nabadgelyo ah taa macnaheedu waxa weeye Soomaaliland
waxay noqotay way qaan gaadhay waxay ka qaan gaadhay dimuqraadiyadda waxay ogaatay waxa dimuqraadiyaddu tahay aad iyo aad baan maanta shucuurtaydu muxuu ahaa ay u wanaagsan tahay oo aan ugu faraxsanay sida dalka oo dhan meel kasta oo ay doorasho ka dhacday deerooma hirdiin waxaan ku sii faraxsanahay maanta gobolkan aan joogo gobolkii aan ka soo jeeday runtii degmadii Ceerigaabo sida loo soo ururiyay ama sida ay u soo baxeen rag wax ku howlay degmada Ceerigaabo ay ugu soo baxeen golaheeda deegaanka natiijada degmada Ceerigaabo waa taa la akhriyay waxay ku soo baxday tacab aad u fara badan dadaal badan oo reer Ceerigaabo u dhamaayeen hadday tahay mas'uuliin iyo hadday tahay shacab iyo hadday tahay xisbiyaba waan idin hambalyeeynaa dhammaan xildhibaanada soo baxay iyo deegaankaba waan hambalyeeynaa runtii waxaan aad ugu faraxsanahay qaabkii wanaagii ay ugu dhacday gobolka Sanaag caam ahaan doorashadii waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha reer Sanaag oo ay tahay markii labaad doorasho ka qabtaan oo markaa hore iyo maanta baan ka mahadnaqayo siday u galeen doorashada bal eegi waa doorasho inagu cusub ahayd waa doorasho laba sanduuq yaaleen waa doorasho wakiilo iyo deegaan ay dooranayeen caalamka indhuhu inagu hayay inaga lafteenu waxay iska dhaadhicinaa laba doorasho ma wada qaban kartaan laakiin maanta xaqiiqooba in dadweynaha reer Soomaaliland ay u bisil yihiin inay laba iyo saddex sanduuqba ku codan karayaan waxaan u mahadnaqayaa madaxda gobolka ugu horeeyo rasaabka gobolka taliyaasha ciidanka amniga ee gobolka Sanaag sidii muddo iyo miisaanka lahayd uga shaqeeyeen nabadgelyada waxaan marnaba ilaaway saddexda xisbi qaran madaxdii ka socday heer qaran taas boroska xubnaha saddexda xubnood ee gobolka u qaabilsan xisbiyada muraaqabiintii ay soo direen ee ka hawlgalay tirinta gobolka oo u soo jeeday in ka badan mararka qaarkood 24 saacadood u soo jeeday si ay natiijada ugu guulgaaraan waxaan ugu hambaleynayaa bulshada gobolka Sanaag sidii nabadgelyada ahayd ee ay u codeeyeen ee ay u ilaaliyeen amniga iyo hawshii doorashada waxaan u hambaleynayaa oo aan aad iyo aad u hambaleynayaa shaqaalihii komishanka gobolkan ee heer gobol iyo heer degmo iyo bahda saxaafadda iyo kuwii xildhibaanada ay tartamayay dhammaantood waxaan la idin kula hambaliyo waxaan salaamayaa aad iyo aad ugu hambaleynayaa ciidamadii kala duwanaa ee qaranka ee ka qayb qaatay doorashada in ay ammaankooda sugaan oo si samniya ugu dhacdo ummadda gobolka Sanaag Yuunus Sheekh Axmed Star TV Ceerigaabo